wadadan ayaa ahayd wado isku xidha gobolada Togdheer, Daadmadheedh iyo Maroodijeec muddo badan oo la sugayay dhismaha wadadani. ugu dambeyn maanta ayaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saydici iyo wafdi ballaadhan oo la socday ay dhagax dhigeen. xafladan ayaa loo qabtay dhagaxdhigga wadadani waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo wafdida la socday maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco, qaar ka mid ah bahda dhaqanka, aqoonyahan iyo waxgarad kale. ugu horeynba waxa halkaasi hadallo isugu jira mahadnaq, duco iyo dardaaran ka jeediyay qaar ka mid ah bahda dhaqanka iyo mas'uuliyiin ka socday hay'adda wadooyinka Soomaaliland. wadadu dhagax dhig kaliya maaha, dhismihii wadada Burco, Daadmadheedh iyo Hargeysa maanta oo taariikhdu tahay 7 bisha 2021 si toos ah inoogu bilowday. waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay in bulshada reer Togdheer iyo bulshada reer Daadmadheedh iyo bulshooyinka reer Maroodijeecba ay farxad iyo qalbi furan iyo ahmiyad soo dhaweyneed ku soo dhaweynayaan wadada. waxaynu u samayn jirnay wadooyinka barigii hore wax la yiraahdo double surface treatment oo ah in daamurka iyo jayga la isdaba dhigo, dabeedna daamurka la mariyo, dabeedna jayga lagu daadiyo sidaas oo ah tekniko adduunyada badankeedu iminka ay ka sii baxayso. waxaa loo gudbay asphalt oo ah waxaynu u naqaano bulshada u taqaano roogga ama wadada roogga ah ee bayfarta lagu dhigo. wadadan oodweyne waxay nasiib u yeelataan ugu bushaaraynayaa in wadada laga dhigi doono roog. deegaanka ay wadadu sii marayso waxaan leeyahay dhammaan maxay hayday dadka dega, waxaan leeyahay si aad iyo aad u qiimo badan oo aad u sharaf badan oo u milga badan oo maal iyo soo dhaweyn iyo qalbi wanaagsan iyo mid walba leh. wadadaas intay socoto waxaan idinka rajaynayaa inaad wadada iyo shaqaalaheedaba ku soo dhaweystaan. aad iyo aad baan wadada ugu faraxsanahay. waxaanu u mahad celinaynaa laga soo bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kastoo gacan ka geysatayna waa u ducaynaynaa, waana uga mahad celinaynaa. waxaanu rajaynaynaa annagu dhinacayagana inaanu qaybtayada qaadan doono haddii la haysto. shacbiga reer Soomaaliland ee Hargeysa ka buuxsantay, ee Berberi ka buuxsantay, ee Burco ka buuxsantay, waxaan leeyahay oodweynayay idinka buuxsamin. wadadaas hadday dhammaato meeshaynu u soo noqonaynaa waa oodweyne. ballan qaadaynaa haddaanu nahay deegaanka u dhaxeeya intaa wadadu marayso, shaqaalaha wadada dhisaaya iyo qalabka iyo gaadiidka wax kastoo ay u baahan yihiin inay naga helaan wixii karaankayaga ah, wax dhibaato soo gaadhanayna aanay arag. waanu ballan qaadaynaa. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo sidoo kale xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga UCUD Maxamuud Salamaan Ramax oo halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyay wadadaasi. maanta mucaaradeed ma jirto, waxaan halkan kaga deeqayaa 15 awr oo bisha Ramadaan bisha afraad baan bilaabaynaa waa tiraahdeene 15 awr oo ay shaqaalaha faraha badan ku afuraan ayaanu haddaanu xisbiga u cudnahay u bilownay inaanu bisha Ramadaan ay ku afuraan shaqaalahaas. ma doonayo inaan siyaasadeeye, waxaan kaliya kaga tegayaa wixii cusub iyo wax qabadka iyo horumarka waa la soo dhaweeyaayo waan soo dhaweynayaa. waan ku bilaabay hadalka wax la leeyahay wixii suurtagalaya darafka iyagana waa taageereen. marka hore waynu jiboonaa, waxaynu naanaa diyaar baanu nahay oo waxbaanu qabanaynaayo. maalintii ragista joogay uu garanayaaye kun geelayaba naloogu ballan qaaday 10,000 oo neef waadhe. bal anaga wax badan inama soo gaadhin. bal iminka qolada waxaa gaadhsiin karaysaan kunkiiba haddaad doontaan kala badho, bal waxaa gaadhsiin karaysaan sameeya. maanta waxaanu dhignay dhagaxii u weynaa ee aanu odhan jiray Hargeysa nagu fog. maanta waa aragtaanood marka taasuna hirgasho qofku intuu ka soo qadeeyaa waa kana ka cashaynaya. waxweyn waa guul soo yeetay. aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa. waxaanu leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka xukuumadda iyo inta hogaaminaysaba Allah ugu daro. wasiirka wasaaradda horumarinta waxbarashada Soomaaliland, wasiirka jidadka, wasiirka deegaanka, wasiirka xanaanada xoolaha iyo waliba gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland oo iyaguna goobtaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda wadadani u leedahay shacbiga Soomaaliland gaar ahaan gobolada ay marayso. wasiirka jidadka iyo gaadiidka ayaan aad ugu mahadnaqayaa oo isagu hawshan qayb ka soo qaatay. sidaad ogtihiin waxaynu iminka maanta dhagax dhignay mashruuca wadada Burco, Oodweyne, Hargeysa,
mashruucaas oo ka mid ahaa qorshaha qaranka ee labaad iyo barnaamijka xisbiga kulmiye maanta dhagaxaanu dhignay noqon maayo dhagax laga tegay wuxuu noqon doonaa dhagax dhisma oo insha allahu ilaahay inala dhex galo waxaanan leeyahay reer togdheerow xaggaa waddadu markay wadweyne dhaafto waan garanayaa hargeysa lacag badan bay haystaa markiiba waa la jiidaya wadadiina reer togdheer ficil badan baan idinku ogaaye idinkoo isku duuban reer togdheerow waddada dhisa waxaan idin leeyahay annaguna haddaanu nahay haweenkii qaranka somalilan haddaanu nahay qurbe iyo guyahaba waanu usoo dadaabaxidhanana waanu idinla shaqaynaynaa waddadan iyo kuwa kaleba waa idinla dhammaynaynaa wasaaradda jidadka iyo gaadiidka ee u igman inay hawsheedii iyo ka badanba ka qabatay waddadana keliya maahee waddooyinka uu qaranku leeyahay waxa aan isdul taagayaa in horumarka waddadu aanay horumar ka horreynin waxaan wada hambalyeenaynaa waddadan oo ah waddo qaran oon ahayn waddo cid gaara leedahay laakiin ay u badan yihiin cid u maraysa ugu dambayntii madaxweyne ku-xigeenka Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo soo gunaanaday hadalka ayaa sheegay inay xukuumad ahaan ka go'an tahay dhismaha waddadani iyo dhamaystirkeedu waxay lagu tagay rabbina aqbalada weeyaano uu rumoobaa haddaynu gacmaha isku qabsanno oo aynu wax walba xooggeena iyo maskaxeena maalkeena u hurno waxay noqonaysaa in waddadaasi way noo hirgelaysaa ka xukuumad ahaana waa naga go'an tahay oo sidaan dheriga dhiishis soo dul dhignay yaan ugu diyaarnahay aan ahayn wax dib dambe loo sugayo ayaan le Cabdullaahi Jaamac warbaahinta SBC magaalada Burco.